shirarka iyagu way fiicnaayeen wixii aanu ka soo saarayna waxaanu kusoo diray communiqueygii aanu wadajirka usoo saaray way ku dheeyihiin markaa qodobada waan filaya inay soo gaareen dee intaasaanu kusoo ururay wixii aanu ka waxoodnay. waan gartay madaxweyne socdaalkanaad Kenya ku timaadeen muddo intee leeg buu soo socday masana la wadaagi kartaa waxyaabaha uu salka ku hayay ee soo dadajiyay hadda. horta kolka hore xilli wanaagsan baan lahayn halkan xafiis baa nooga furan diblomaasiya iyaguna mar walba wayna la soo xiriirayeen markaan horta labadooda xilli waan wahay markii aan xoojinaan safarkaana ku heshiinay saasuu nagu cusubay madaxweynuhu markaa xilli jiray baan sii xoojinaa mid cusub la bilaabaya maaha. waan gartay wuxuu ku soo beegmay xilli dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya xiriirkoodu uu aad u xun yahay idinku see u aragtaan. horta labada dal wax ka dhexeeya faragelin oo anagu waxaa ka dhexeeya maana faragelin hawshaana ma galayno dee wixii ka dhexeeya laba dowladood ayay jirtaa anagu Kenya waxaa naga dhexeey man ka wada hadlay. laakiin dowladda Soomaaliya waxay u aragtaa Somaliland inay ka mid tahay waxyaabaha faragelinta ah ee Kenya ku eedeynaysan dabcan waxaa loo tarjumi karaa inay qayb ka mid tihiin sababaha ay xiriirkii diblomaasiyadeed ugu jartay marka arrintaa bal ka waran. maanta haddii dowladda xilka u gooyeen waxay ila tahay waa go-aan ay gaareen qolyaan muqdisho joogtaa waxaan soo warkaa haddii ay u jeedaan Somaliland baa soo dhaweyseen oo aan ka soo qaado tii hore ka dhacday Guinea Conakry waxay dee ila tahay dalkii aanu tagnaba ee soo dhaweeyay xilka u gooya bal markaasaan arkay ummadda cid isku soo dhaanay dowladda caalamka ama dowladda Afrika ku soo hadhay dowladda Afrikaan u tagnay oo intii ka wada soo dhaweeyay baa jira kuwa gacan u gooyeen xilka marka waxay dadka dowladda ku soo hadhay. waan gartay madaxweyne marka idinka iyo Soomaaliya waynu u gali doonaa dabcan wada hadallada jiray Djibouti idinku dhex maray hase haatee arrimaha Kenya intaynaan ka bixin dowladda Kenya qodobadaad ka wada hadasheen ganacsiga iyo iskaashiga iyo isku socodka ayaa ugu waaweyn iyo ammaanka hawlahaasi markaas sidee u socon doonaan marka laga bilaabo heshiiskiinan imika. socdaalkeen baan ku heshiinay laba dowladood si u fulayeen ee loo gali lahaa farsamo ahaan ee loo daadegi lahaana wasaaradaha iyo guddiyada loo xil saara ayaa fulin doona inaanu fulino degdeg u fulino waan ku heshiinay marka qodobada aan ku heshiin soo saaray fulintooda waan wadnaa waan fulayaan. Soomaaliya hore waxay u sheegtay muwaadiniinta Kenyaanka ah inay ka soo qaadanayaan safaaradda Soomaaliya dalku gal ama fiise arrimahaasi ma saameynayaan dadka imanaya Somaliland ee Kenyaanka iyo kuwa imika jooga gudaha Somaliland. maya dee anaga waxaan soddon sano dowlad maana wahayn taa maxaa keenay anagu dad labadooda kala gaaro soddon sano jaara waan wahay iyagunbaa dee dadka hadda waanu xukunaaye soddonkaa sano mid walba dee wuxuu waan xukumaa Somaliland anaa xukuma soddon sano way ogyihiin kuma jiro sistamkooda ma wada shaqeyno laba dowlad jaaraan nahay anagu Soomaalinimo iyo jaar iyo wanaag baan u hayna iyagaasa durduur kale markaa saameyn mayso waxay gooyeen. dadka ay dowladda Soomaaliya sheegtay 7 cisho gudahood inay dalka Soomaaliya kaga baxaan ma ku jiraan oo ma saameynayaan dadka jooga Somaliland ee muwaadiniinta Kenyaanka ee shaqooyinka kala duwan ka qabta Hargeysa iyo magaalooyinka kale Somaliland. Soomaaliya ma shaqo kulii ma maamulaan tarisoo soo gaaray xamar baa lagu ilaaliyaa oo haddii caawa ciidankan ay ka baxaan isaga aan meel gala garanayday maxaa Somaliland ka galay. haddii aynu markaa eegno dhinaca isku socodka muwaadiniinta Somaliland sidee ku iman karayaan Kenya muwaadiniinta Kenyana sidee ku soo degayaan Somaliland. haddaanu bilownay in xafiisyada furan ku heshiino degdeg baa loo furi doonaa dabeetana si raaxada iman doona Somaliland xilkana dhex maraya waxayna muwaadiniinta iyagu si dhib yar oo fudud ku yimaadaan si nabadgelyana ku joogaan oo nabad arrintaa ka heshiisiin dadkooda baabshirkooda iyo xilkooda waa inuu noqdo mid fudud oo hawl yar waa furaya. waan gartay laakiin bisha March ee carabka lagu dhuftay ama lagu xusay war-saxaafadeedka muddo ay naga xigta muddada ka hor sidee ayay iskugu safrayaan labada dhinac muwaadiniintooda. ummadka way soo socdaan hadda waa naga dhimid maanta iyo bariga way socdaan waa ka buuxa Somaliland Nairobi Kenyaanku waa jooga Somaliland hadda waa la socdaa wax dhibaatay xageeyay ma jiro waan sii wanaajinaa. Kenya markaa ma isla qaadateen in baasaboorka Somaliland lagu soo galo dalkeeda. waanagu waan ku soo galno inta socotaa Somaliland barshano caalamka dhan ku maraay wixii kale halka ka dhibanna wada hadalkii waa la dhameeyay madaxweynaha waa soo ogolaaday guddiga farsamada iyo immigration iyo airline-da intaana loo dadajinaya. waan gartay mudane madaxweyne waxaa jira xiriirka iskaashiga ganacsiga oo aad heshiisyadiina ku xusan
dadka arrimaha ganacsiga oo darasa waxay sheegayaan Kenya waxa ugu badan ay dhoofisaa ama dhulka Soomaalida u dhoofisaa waa jaadka Somaliland maxay soo dhoofinaysaa ay ka baac mushtartay dunida kale u dhoofisaa taasi waa hawl Somaliland mar walba haysata Ethiopia jaadkan ku keenaa lacag ma naga gashay markii balwada bartay iibsanayna kama xidho wixii iibsanayna dadka balwada doonta marka wixii dastuurku guriga laga baaxshay sharciga iyo shareecadu ee baaxshka waa la ogolaa waxay diidayna wala kala joojiyo waxa uu taala Soomaaliland oo dhan wax soo saaran beerayeen xoolalayeen macdan beerayeen bad baan leeyahay xoojina wax soo saarka hadba italkayga waan gartay Somaliland muddo 3 sanadood ku dhow oo hadda bila kooban ay ka dhiman yihiin waxay soo duubaysaa sida uu heli lahayd i'tiraaf caalamiya Kenya hawlahaas dabcan waad ka wada hadasheen sidaad horeba u sheegtay maxay idin kala qaban kartaa rajaynta leeg baad ka qabtaa oo aad u sheegi kartaa dadka Somaliland riska ay ku dhageysanayaan dawladda waxa ku hadaan miyaa laga washa rajo wanaagsan markuu qabnaa hawlahan kala hadalada furiya ma ka madax banaan yahay xiriirkan cusub imika sida war-saxaafadeedka ku qoran lagu xusay in la xoojinayo Kenya iyo Somaliland u dhaxeeya xiriirka xumaaday ee Soomaaliya iyo Kenya waxa Soomaaliya Kenya ka dhaxeeya anaga noo xusay dawladda madax banaan dantooda ka wadsanaya maanta Soomaaliya guusha xiriirkii hadii soo ceshadaan noo xusay mudane madaxweyne idinka iyo Soomaaliya hore waxa jiray wada hadallo waxa ugu dambeeyay wada hadalkii dhawaan ku yeelateen magaalada Djibouti dawladda Djibouti iyo dawladaha beesha caalamku bay idin dhexdhexaadinayeen kulama jiray loo balansanaa in la qabto gudiyaa la sameeyay intaan wararka ku hayno waxba kama imid dhalin oo la iskuma soo noqon halku gaabisku ka yimid halkay imika wax marayaan waxa ka baxday qolada Muqdisho maanta cid Muqdisho ka talisaano uma jeedo wada hadal iyada jirtaa laakiin hawsha waqtiga walba ay ka baxday madaxweyne haddii aan gunaanadka ku dhawaado waraysigan gudaha Somaliland ayaan jeclayna su'aalka weydiiyo hadda waxa socda diiwaangelinta dadkii aan hore u haysan kaadhadhka codbixinta Somaliland waxa ku soo foole doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada ma noo sheegi kartaa xilliga ay doorashadaasi dhacayso ama suurtagal ma tahay in sanadka soo socda dhexdiisa doorashada isku sidkan la qabto laba doorasho way saarayeen bishan bayna qabsan doonta haddii aan ilaahdo hawsheeduna waa la bilaabo way socotaa waxaana yalla insha Allah may ka wada la qabanaya kaas waxa uu ahaa madaxweynaha Somaliland Muuse Bixi Cabdi waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha VOA-da Sahra Ciidla Nuur